ardaydii kale magaalada ay ka fakirayaan deegaanka ay jecel yihiin inay ku noolaadaan deegaan qurxoon isla markaana ay ka shaqeeyaan deegaankaas sidii loo qurxin lahaa waxaan wada ogsoonahay in ilaalinta deegaanka ay waajib islaami ah tahay oo maxay ahayd laga wada rabo ay tahay sidoo kale waajib wadani ah oo qof walba oo inaga mid ah uu yaalo sidii deegaanka loo ilaalin lahaa qurxintiisa looga shaqeyn lahaa nadaafadiisa looga shaqeyn lahaa waxa ogsoonatiin deegaanka inaan anaga ka madax banaaneen oo aan qayb ka nahay deegaanka waan ka tirsannahay taas macnaheedu waxa waaye mar walba deegaanka dhibaateeno nafsadeena dhibaateeno mar walba deegaanka badbaadino oo ilaalinane nafsadeena badbaadsanay oo ilaalinay marka waxaan laga rabaa dhammaanteen anaga oo ah ururka ilaalinta ama hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed iyo ardayda mucaasir inaan maanta heshiis meeshan ku galno oo aan dhahno gacmaha aan isqabsano deegaanka aan ilaalino marka ardayay diyaar waa u tihiin deegaanka ilaalintiisa aan ka wada shaqeyno diyaar waa u tihiin Soomaa oo ku faraxsanahay anagana waa idin kala shaqeynaynaa aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.